hagaag saaxiibayaal soo dhawaada mar kale. waxaa inoo sii socda muuqaalkeeni toddobaad ee qeybta dhexe ee advansiga. waxaan rabnaa muuqaalkan wuxuu noqonayaa isagana inaan uga hadalno waa maxay indicator dadka suuqa isticmaala siyaabo kala duwan ayay u isticmaalaan. marka haddaa aragta indicator waxaa arki doontaa anagu istaraatiijiyad gaara ayaa suuqa ku taxaliilnaa oo uga shaqeysanaa, laakiin dadka qaar ayagoo istaraatiijiyad ahaan u isticmaalaya oo indicatorkaas keliya uga shaqeysanaya ayaa arkeysaa. sidoo kale markaa aragtid dad shaashadan mooyaane shaashad kale isticmaalayo MT4ka la yirahdo. MT4ka anagu inaan suuqa ka trade gareyno keliya ayaa u isticmaalaa, laakiin dadka qaar waxay u isticmaalaan MT4ka iyo MT5ka ayay computerka kusoo degsadaan, kadibna indicator badan ayay sawirtaan maanta dhan. marka anagu shaashadan oo trading view keligeed ayaan sawiranaa toolskan iyo waxaan anagu isticmaalayno, kadib istaraatiijiyadeenu saas ayuu ku saleysan yahay. laakiin dadka qaar waa arki doontaa ayagoo istaraatiijiyad ahaan u isticmaalaya, balse lama rabo inaad adiguna aad istaraatiiji ahaan u tijaabi isdhaad. marka indicator haddii aan si yar u sheego waxay noqonaysaa waa tusiyayaal mise muujiyayaal. indicatorka marka anagu waxaa u isticmaalnaa waan ku yiri inaan suuqa markaan aragno meel inaan entry ka galno oo kale, meeshaas waxyaaba dheeraad camal ayaan u isticmaalnaa. oo suuqa markaan rabno halkan inaan ka galno oo kale mise halkan inaan ka galno oo kale waa inay keenaa meeshaan indicator na tusinaya in suuqan meeshaan uu ka kici karo oo kale. haddaan halkan aan soo furno meeshaan aan ku qorno aniga halkan kuwaana tigtigiisa saar meeshaan inkaysan waxaa ugu fiican RSI ayaa ku qori kartaa, waa relative strength index. isaga ayaad ku dhufanaysaa, kadib waxaa ujeedaa laba ay furmatay sorry inaa halkan uu kaaga soo baxo. halkan markuu kaaga soo baxo dadka indicatorkan isticmaala waxay aaminsan yihiin korkan ugu koreeyo markuu uu tago in suuqa dantii laga fishay oo suuqan hoos u soo aadahay. saxankan ayaa halkaana ka muuqda, waa kan oo lanes camal laga dhigay. dhankan kalena haddaa fiirisid markuu halkan tago waxay aaminsan yihiin inuu suuqan uu ka kici karo meeshaan oo kor u aadi karo. marka anagu tusaale markaan meeshaan oo kale aan buy aan rabno inaan suuqan uga galno meeshaan oo kale oo ruulskeeni iyo waxyaabaheeni kale ay noo waafaqday tradekan oo kale aan rabo kale halkan inaan ka galno oo kale. waxa dheeraadka idin sheegayo oo kale waxaa waaye meeshaan inay bilcagsi isku noqdaan iyo dhankan kale. halkan waxa ka dhacay waa inay dhankaasna ay wax ka duwan aan ka aragnaa oo ay ka dhacaan. markaas ayaa waxaan dhihi karnaa suuqa wixii aan rabnay waa ka helnay. tusaale yar haddaa idin siiyo, meeshaan waxaa ujeedaa inay hadda saan camal ay tahay. halkan kalena haddaa fiirisid waxay noqonaysaa ayadana bilcagsigeeda. kana waa ujeedaa hoostaan ayuu ujeedaa, kana kor ayuu ujeedaa. sidoo kale dhankan kale haddaa fiirisid asagana meel fiican oo suuqa lagu soo kala celiyo suuqa kusoo kala wariyo oo kale. dhankan hayadana haddaa fiirisid aaway halkan haddaa fiirisid ayadana waxaa ujeedaa inuu suuqa halkan kasoo kala daatay, halkan kor ay saan ugu jeedo, dhankan kalena yes waxaa ujeedaa kan markuu uu korkan uu ujeeday waa inay meeshaan iyo meeshaan ay isku beegmataa, halkan iyo halkan ay isku beegmataa, dhankan iyo dhankan korkan iyo korkan isku beegmataa. markiisuu kor uu soo daadanayo kor ayaa laga saartaa, kana kor ayaa laga saartaa. marka waxaa ujeedaa inuu kan kor uu socday, kanna waxaa ujeedaa inuu isagana bilcagsigeeda dhawn camal uu kusoo socday. suuqa sidaas ayuu waxaa la yiraahdo u sameeyaa isku dhaaf. dhankan kale marka halkan oo kale haddaa fiirisid halkan oo kale haddaa fiirisid halkan hadda waxaa ujeedaa suuqan markuu uu bartaan yimid inuu ka kacay uu baa aada ujeedaa. marka adina marka waxaa laga yaabaa meeshaan inaad fursad ka heshay
oo demands aad ka heshay ruleskaadi kala dhamaan ku waafaqay suuqan xarabta inaad meeshaan ka gasho waxyaabaha marka aad rabto halkan inaad ka gashin extra ku noqon kara ruleskaada marka heshay oo kale ayuu ku jira waxaan rabaa marka adina halkan aad kasoo bilowday dhaqaaqan halkan imaaday usaan hoos u ahaa asagana bilcagsiisa inuu halkaan noqdaa rabo yes saan kan waa ujeedaa halkaan ayuu ka bilowda halkaas ayuu korkor ayuu saas ugu socdaa kanne bilcagsiisa ayuu ku socdaa waxa ujeedaa inuu down trend uu ku socdo indicator anaga halkaan xabo RSI-ga ayaan ka isticmaalnaa asagana waxaan u isticmaalnaa extra inaan suuqa waxyaabo markaan entry-geena helno confirmation dheeraad oo inoo sii noqdo indicator badan oo la isticmaala oo arki doontaa sida TDI oo kale iyo kuwa badan oo kale iyo moving average kan oo kale laakiin anagu halkaas xabo ayaa qayb ka ah nidaamkeena laakiin kuwa badan waa arki doontaa laakiin muhiim ah indicator kaliis go'aan fiican ma siin doon insha Allah intaan muuqaalkeena xeego ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.